Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa qaabkee loo furtaa followska Facebookaaga. Okay, Facebookaaga haddaad soo furatid kadibna aan ku dhufano saddexdaas alif ee isdul saaran. Okay, marka halkaa ku dhufatid kadib waxaa ka tegaysaa meesha ay ku qoran tahay settings and privacy. Okay, settings and privacy markaa ku dhufatid kadib waxaa kusii dhufanaysaa settings. Okay, waa wadaysaa kadib waxaad tegaysaa posts. Okay, post markaa ku dhufatid meesha waxay ku qoran tahay who can see your future post ayaa ku dhufanaysaa. Halkaas waxaa kasoo dhigaysaa public. Marka public aad kasoo dhigtid ayaa followers ku furmanaya. Intaad public kasoo dhigin kuma furmanayo. Okay, marka public halkaa kasoo dhigtid kadib waa ka baxaynaa. Taaga dhehna ayada waa ka tegaynaa. Kadib waxaa dib ugu noqonaynaa profile-keena magaca meeshu noogu qoran yahay. Okay, kadib waxaan tegaynaa edit profile meesha ay ku qoran tahay. Okay, edit profile markaa ku dhufatid kadib waxaa kusii dhufanaysaa iyadana edit meesha yartaas. Okay, edit markaa ku dhufatid kor baa u wadaysaa meeshaas ay ku qoran tahay followed by baa tigta saaraysaa kadibna waxaa dhehaysaa save baa dhehaysaa. Okay, saa u jeedo halkaas nooga soo gashay oo maxaa noogu soo darsamay followed by. Okay, waa ka wada baxaynaa haddaan profile-keena caadi u tagno refresh aan dhahno fiiri waa kaas waxaan intaas qof aan soo follow garaysay. Okay, haddaad ku dhufatid followerskaagana si real ah ayuu kuu geenayaa dadka kusoo follow garay ayuu korkaa tusayaa waa intaas.